ururka caafimaadka caruuriyo ciroole dadkuu u wada cawdaane midnaan cayrinaynin oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka runtii wanaagsan marka la soo noqday afka markii iska xiray isbedel weyn ka jira meesha maanta kale san ka xirnaa idin ma sii hadli doono just waxaan rabay inaan arko qaybtii hore waxaa la yiri ma jirto la kala xirxiray marka qaybta service-ka eegi doono just waan xiri doonaa sanka waa eegaynaa bonjour excuse-moi service financier c'est où elle est où normalement d'accord merci ok eegaynaa waxaa la yiri waa xiran yahay qaybtaas dhan waa xiran tahay qaybo badanaa la xiray istaalka maadaama ay arrintii badatay problemada iska bateen marka anaa idinku soo noqday dhakhtarka wax badanaa iska bedelay dadka caadiga oo xataa la daweyn jiray ma imaadaan sababtoo ah xanuunkaana dartiisa loo sameeyey istaalka dhan waa la fasaxay hata dadka guryahooda alyiri taga ma joogaan marka waxaan sameyn doonaa gurigiyaa lagu noqonaa ilaa xanuunka uu ka dhammaado ilaa xanuunka uu ka dhammaado waa la noqonaa doonaa qaybo badan oo istaalka ayaa xiran qaybo badan oo istaalka ayaa albaabada loo laabay qaybahan oo dhan albaabada waa la xiray ma shaqeynayo dhakhtarka just waxaa shaqeynaya waxyaabaha aad iyo aad emergency-gu ah ayaa shaqeynaya dadkii ballamada lahaay dadkii xanuunada waaweynaya hore u qabi jiray xataa guryahooda lagu daaweynaa marka saas daraadeeda sankaa xiran doonaa halkan waxaa jooga dadka xanuunka iskaga baqaaya iska liisgelinaya waxaa jooga dad xanuunsanayo xanuunka cudurka shakiga ka qabo sankaa ii xiran waa istaal aad u da-weyn muddo badan mar hore la dhisay aad baa xidiis u weyn tahay maanta intaa ku lugeynaysa kama dhex bixi kartid qaybta hadda aan soo maray qaybtaas lagu daaweynaa dadka xanuunka qaba marka shaqooyin kale oo istaagtay dhakhtarku uu istaagay shaqooyin kale oo istaagay marka maanta ilaahayga badbaadiyo ani hadda service-kaa rabi waa waaye waan ka soo tegay because ani wax service aan hore u samaystay ayaa waraaqo iyo waxaasaa keenaya mara emergency-gaana soo gala habeen bishii Febraayo ayaan imaaday marka waraaqa la isoo diray aan islahay bila kasoo wareegtay lacagta badanaysa sidii kale service-kaasaa imaaday iyo si aan bal u eego waa qaybta kaadida qaybta kelyaha waxaas way qaybahan dhan cidlo waaye marka waa inaan ka tagno galab wanaagsan subax wanaagsan salaama galabtii aan u bartay barnaamijyada
sankaan xiray marna sankaan xiray ama furaa ilaahu naga haayo ilaahu rabbiyo naga haayo rabbiyo naga haayo intaa ka baxaayo leh banaanka waan salaamayaa ilaahay xanuunka ka qaada inta xanuunsan inta dhimatayna allah u naxariisto qayb kale halkaas ah qaybtaas inaan ka bixi doona u malaynaa qaybtaasaan ka baxayaa waa dhakhtarkan waa dhakhtar weyn waa dhakhtar weyn oo aad weyn oo macal dadka umusha xanuunada kala duwan wadnaha kaadida madaxa maskaxda kulle jirka oo dhan lafaha ayaa dhakhtarkan ka shaqeeya dhakhtar aad weyn malaayiin kun oo qof ayaa lagu daaweeyaa marka waxyaabaha dhan qaybtan xanuunka ayaa dadka loogu sheegaa waxaa lagu leeyahay markaad soo geshid gacanta marso dadka gacanta marsaa lagu leeyahay bahasha gacanta marsanaysaa qofkaa waxaa lagu leeyahay hagaasiina salaamin oo xabadkaa saarin ay ku leeyihiin halkan waxaa lagu leeyahay maxaan ku irahdaa afkaaga iyo sankaaga iyo haddaad taabanin afkaaga gacantaada ha saarin maadaama gacanta oo jeermis ay tahay taabanna lagu leeyahay markaad hindhisay sidoo kale gacanta sidaan u laabaa lagu leeyahay xusulkaaga saa u saar waxay ka mid tahay talooyinka oo dhakhtarka yacni waxaa lagu leeyahay si aa uga badbaadid xiro kansanka xiro kansanka xiraa lagu leeyahay haddaa awoodi kartid haysatid nambarkaasna waa lasoo wici doonaa nambarkaas meesha ku qoran nambarkaas haddaad su-aalo ka qabtid nambarkaasa soo wacaysaa waxaan dhan waxay kaa caawinayaan lagu leeyahay meel kastoo dhakhtarkaa lagu dhejiyey halkan sidoo kale waa lagu dhejiyey dhakhtarka weyn ee tanoon ayaan joognaa aad ayaa xanuunkan looga dayrinaya marka dhakhaatiirtii halkan waxay iskugu jiraan dad xiran afka iyo dadaan xirnayn marka halkanaan ka baxayaa halkan rabo inaan ka baxo haddii ilaa iraahdo qeybo badanaa laga soo galaa dhankan hadda ka soo galay xafiiskaana imaanay marka oo albaabka kasoo geshid waa iska qoreysaa ee qaybta emergency-ga aan idin sheegay anima xanuunsan alxamdulilah bishii februaayo imid dhakhtarkan emergency ahaan lacago iyo isoo direen kaarka caafimaadka waa aan siiyey laakiin waxay isoo direen warqad ah haddaad kaarkaaga noo keen ama lacagta marka waxaan keenayay service yaraan keenayay servicekin wuu xiran yahay marka wixii dhan waa la joojiyey avamsi waa la joojiyey servisyadii oo dhan ma shaqeynayaan albaabkaa loo xiray maadaama xanuunkan aad loola dagaalamayo oo sariiro ma lahan kubeertooyinkii ma lahan dharkii loo xiranayo waa yar yihiin yacni ay service oo qofka lagu daaweynayay oo dhan ayaa iska yaraaday marka sister dadka dhan waa la celinaya albaabkooda u jeediin isbitaal weyn oo aad dadka ugu fara badan yahu ahaan jiray gebi ahaanba hawshii u qaban jiray waa la joojiyey wuxuu qabtaa inta badan dadka xanuunkaas qabo because waxaa laga baqaa dadka guryihiina joogaa la dhahay ilaa amar dambe dadka xanuunsanaayo xataa guryaha lagu daaweynayaa waa in guryaha aadaan because boosas looma haayo dhakhaatiirtin way ku daaleen marka ilaahay xanuunkan naga haayo wuxuu socdaa hadda muddo bil iyo xoogaa umaleynaa walow haddaay qaybta wararka ay sheegayeen inuu hoos ugu dhacay inuu xoogaa yar u dhacay laakiinse waxaan u jeeday riboortka lasoo gudbinayay ee maraykanka USA 1240 saac gudahood inay dhinteen 1200 qof inay dhinteen faransiiskuna wuxuu soo sheegayaa
inay dhibaatada ay ku badan tahay hadda maraykanka dadka dhiban oo aadka maraykanka faransiiska dadkii ugu horreeyey oo dhibaatada taabata u ahaa laakiin hadda sidii hore maahan markaas qaybtaasaan ka imaaday daay qaybtaas dambe ayaan ka imaaday dhankaasna waa isbitaalkii dhabarkiisa kalena waa jirtaa isbitaal aad u weyn qaybtaan qaybtii oo ansiyaanka amba waa qayb hore waaye duugowday qaybtaasna waa qayb cusub oo waxa waaye basaxaan ka qaadan doonaa qaybtii horaan ku noqona haddii ilaah yiraahdo mar kale aan salaamayaa waxaa kaloo mudan inaan ka hadalno doorashooyinkii oo ujeedin sooma doorashooyinku waa istaageen halkani waa doorashooyinkii waa istaageen oo dadka xaafadda la dooranayo waxaa waa istaageen gabadhan waa gabadha baariis haysato waaye meerka baariis waaye nixon waxay u tartamaysaa qaybta mar kale in la doortay rabtaa 2 jeer hore la doortay ku guuleysatay waxyaabo badan ee baariis u qabatay labadoodan ayaa la rabaa in la doorto qaybta baariis ka soo sharxeen guud ahaan gobolada ee faransiiska oo dhan ayaa la iska soo sharxaya qaybtan waa baariis waa qaybta baariis waa qaybta baariis marka howlihiidaa istaageen waxaa ugu weynaay howlihii istaagay waxaa ugu weynaa doorashooyinka degmooyinka deegaanka doorashooyinka deegaanka way istaageen marka arrimahan darteeda loo istaajiyey dibaa loo dhigay koley abriil maleynayo abriil kadib koley ama abriil dhexdeeda tan emergencyga waan ku lugeyn meesha baskaan u socdaa dhankaas kalean ka bixi doonaa haddii ilaahay raali ka dhigo waa idin salaamaha mar kale meel kastoo joogtaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogtaan just waxaan rabaa inaad ku kordhiyo fikradaha jiro soo maahan maadaama annaga waddamadan aan joogno nasiibkoodaa noqday in waddamo oo isku filan ay noqdaan iskaafin karo haddana sitaa dhibaatadooda aad ayay u badatay xanuunkan way qaabili la'yihiin waxyaabo badanaa ka dhammaaday hadda wixii gacnaha la marsanaya annaga xataa farmasiyaasha waa ka weyne bahasha sanka waa waaye waaba naga dhammaatay maryaal lagu xirtaa afka yacni soomaaliya oo kale maadaama aan nahay waddan yar aan nahay waddan ma yarin laakiin aan nahay waddan soo koraayo oo dhibaato ku soo dhacday waxaa la rabaa shacabka inay dhankooda ayagana ka geystaan nadaafadda bannaanka cuntooyinka laga cunaayo inay iska yareeyaan ama iska dhaafaan cabitaanka gaaraan cabitaanka hadday wax cunaya cuntooyinka kulul oo kale inaa cuntiin sidaas daraaddeeda xanuunka uu idinka yaraanaha insha allah hadda xanuun ma jiro idinka xaggiina waa iska fiican tihiin nasiibkiina ilaahay idin siyaadiyo annagana ilaahay naga haayo inta dhimatana alla u naxariisto waa meesha soo la xiray albaabada loo laabay halkana ka geli jirni waa la xiray gudahaanba waa la xiray istaalka dhexdiisa waa cidlo just dadkaas baa lagu daaweynaa iyo waxyaaba halis oo qofka oo xanuunada u dhimo raba camal xanuunada kale sida kale laakiinse dhakhtarku waa la joojiyey waxyaabihii kale dhan sidii hore uma shaqeynayaan marka mar dhow intaasaa kusoo gabagabeynaa haddii ilaahay raali ka dhigo maalin dhaweed meesha tareenadaan tegey maantana dhakhtarkaanaan soo eegay anigana serviceaan ka samaysanayay aniga waan iska fiicanahay alxamdulilah caafimaadka allah noo siyaadiyo inta xanuunsanna xanuunka allah ka qaado intii dhimatayna allah u naxariisto bas ayaan qaadanaya waad ujeeda restaurantiyadan
restaurantiyada xaafadda ol magaalada dhan sidaan albaabada loogu xiray warqadaha la soo dejiyaa oo ah inuu xirnaanayso meesha warqadaha noocaasaa la soo dejiyaa sidaa ogtihiin dalka faransiiska waxaa ku badan baararka waaweyn ku badan sida baarkan oo kale kas aaday ugu ganacsadaan kaafeyga iyo waxyaabaha kale isticmaalaan marka intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa haddii ilaahay raali ka dhigo tan iyo kulantideena dambe waa Khadiija Qalanjo oo Paris idin kale maalin wanaagsan intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa idinkoo dhammaantiin idin salaamayo Soomaaliya meel kastoo joogtaan asxaabtayda inta i garanaysa intaan i garanaynin dhammaan meel kastoo aad joogtaan subax wanaagsan maalin wanaagsan dadkay weli habeen u tahay habeen wanaagsan tan iyo sidaas nabadgelyo ururka caafimaadka caruuriyo ciroole dadkuu u wada cawdaane midnaan cayrinayne oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka caruuriyo ciroole dadkuu u wada cawdaane midnaan cayrinayne oo caradeena hala iseeyo